waxa ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport Maxamed Cabdi Ciga oo kamid ah siyaasiyiinta beeshaasi oo kamid ahaa dadkii ka soo horjeeday goonistaagga Soomaaliland hase yeeshee haatan ka noqday mabdaasi kadib markii uu cafis u fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Maxamed Cabdi Ciga oo garoonka diyaaradaha ugu warramay warbaahinta ayaa dhinaciisa ka warramay waxyaabihii sababay ka tagista dalka iyo soo noqoshadiisa maanta. waxaanu sheegay inuu Ilaahay uga mahadnaqayo in khalad uu galay oo ka soo hadeeyay isagoo u mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu sameeyay cafiskan uu dalkiisa hooyo ku yimid. waxa kale oo mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo laabashadiisa. Maxamed Cabdi Ciga waxa uu xukuumadda ku amaanay dadaalka ay ugu jirto sidii beesha uu ka soo jeedo ay uga dhex muuqan lahayd masraxa siyaasadda ee dalka isagoo ka dalbaday in inta dhibana la dhamaystiro. Barkad Jaamac Xirsi oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dadka la haybsooco ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ee haatan talada dalka haysa ay wax badan u qabatay beeshiisa. uu ka soo jeedo tusaalena waxa uu soo qaatay inay dawladdu kafaalo qaaday inay fiiga waxbarashada jaamacadaha ka bixiso arday tiradoodu gaarayso 30 arday. waxa kale oo la taliyuhu madaxweynuhu ee arrimaha dadka la haybsooco uu tilmaamay in xukuumaddu ka howlgashay sidii nabaradii dhaqan ee gaadhay beeshaasi looga daweyn lahaa.